guriga qiimihiisu yahay 7 milyan oo gini oo uu leeyahay xiddiga Juventus Cristiano Ronaldo kuna yaala magaalada Madeira ayaa la jabsaday intii uu ku maqnaa ciyaar ay la lahaayeen Spain oo ka dhacaysay magaalada Lisbon ee waddanka Boortaqiiska. Tuuga ayaa la sheegayaa inuu guriga si dhuumaalaysi ah ku soo galay kadib markii xubin ka tirsan shaqaalaha Ronaldo uu furay albaabka garaashka baabuurta. funaanad Juventus ah oo saxiixan ayaa la sheegay inay ka mid ahayd waxyaabaha la qaatay. waxaa qaylo dhaan sameeyay qof ka mid ah ehelka Ronaldo. booliska ayaa durba booqday guriga waxayna sheegeen inay aqoonsadeen tuuga kadib markii ay baareen fiidyow ay duubeen kaamirooyinka ammaanka oo loo yaqaano CCTV. booliska ayaa sheegeen inay ku raad joogaan tuuga jabsaday guriga Ronaldo balse weli cidna looma soo qaban. waxaa kaloo guriga ku nool hooyada dhashay Cristiano Ronaldo iyo walaalkiisa ka weyn balse lama cadaynin in ay ku sugnaayeen guriga markii loo soo dhacay. gurigan cajiibka ah ayaa Cristiano waxa uu iibsaday sanadkii 2015 waxaana lagu sameeyay dayactir aad u ballaaran. gurigan wuxuu ka kooban yahay 7 dabaq. waxyaabaha uu leeyahay waxaa ka mid ah garoon kubadda lagu ciyaaro iyo 2 baraakadood oo kuwa dabaasha ah. bilihii u horeeyay oo caabuqa corona dartiis kubadda cagta loo joojiyay ayaa la sheegayaa in Ronaldo, Georgina iyo carruurtooda ay ku noolaayeen gurigan. xidigaha kale ee Gerard Piqué iyo Alvaro Morata ayaa ka mid ah ciyaartooyda kubadda cagta ugu sareysa ee ay guryahooda weerareen tuugo.